waxaynu taaganahay oo aynu usii gudbaynaa xaggii fulinta usii dhowaanaynaa maantana waxaynu falanqaynaynaa sidaynu u yarayn karnaa khataraha maalgashi ee tamarta cusboonaata ku dhaca. barnaamijkani waxa uu xooga saari doonaa 3 meelood oo muhiim ah in wada xaajood qaran laga sameeyo qaabka ugu fiican ee lagu hirgelin karo shabakadaha yaryar ee mini gridska. component imkan ku jirnaa waxa weeyaan kii muxuu ahaayay siyaasadaha iyo shuruucda ay kaga taageerisay dhinaca tamarta cusboonaata. hore waxaynu u sameynay oo aynu ka soo wada qayb qaadanay siyaasadda mini gridka policy-ga iyo regulationkiisii. maantana waxaynu taaganahay oo aynu usii gudbaynaa xaggii fulinta usii dhowaanaynaa. maantana waxaynu falanqaynaynaa sidaynu u yarayn karnaa khataraha maalgashi ee tamarta cusboonaata ku dhaca. waatahay maanta halkan u fadhino aynu 2 cisho ka doodi doono dabadeetana halka wax maxsuula oo ka soo noqdo oo shirar la xiriira dhinaca siyaasadda tamarta cusboonaata. waxaan filayaa in hadda siyaasadda ma kala nahay tamarta cusboonaata Soomaaliland siyaasad bay kala leedahay. maantana waxaan joognaa kulan kale oo ka hadlaya khataraha la xiriira tamarta cusboonaata iyo sidii aynu iyana wada tashi aynu uga sameyn lahayn waxbarasho uga sameyn lahayn. kulan kastoo la yimaado waxbaa laga bartaa. marka khataraha dee leefalo kala duwan baynu eegaynaa. mar waxaynu ka eegaynaa dhinaca siyaasadda iyo regulationka ama policyga iyo regulationka siday noqonaysaa, sideebay cashuuraha ay raad ugu yeelanaysaa, sideebay haddii la ka dhigayo financial ama dhinaca maaliyadda iyo investmentkeeda sideebaa loo sameeyaa, sideebaa looga qayb galaa ama tartamadeeda iyo investmentkeeda sideebaa loo galaa, haddii la ka dhigayo sideebaa marketka ay u saameynaysaa suuqa ay raad uga yeelan doontaa. runtii maanta waxaynu u joognaa madal qaaliya, madal bilan oo aynu kaga doonayno caqabadaha waxa weeye ka hor yimaada maalgashiga renewable energy-ga. maadaama aynu ogsoonahay kheyraadka renewable energy waddankeenu inuu qani ku yahay waqtiyadan ugu dambeeyana runtii aada looga faa'iidaystay. maadaama haddaynu waxa weeye taxliilino oo waxa weeye aynu analyze garayno renewable energy maanta inoo bedeli karo fossil fuel-kan. runtii maanta waxaynu u fadhinaa inaynu eegno caqabadaha ka hor imanaya. kolley wasaaradda macalinta iyo tamarta waxay samaysay shuruucyo fara badan oo waxay samaysay siyaasaddii tamarta oo bilar dhan oo ka mida lagaga hadlayo waxa weeye maalgashiga tamarta cusboonaata. kadib kulankan maanta oo daaran barnaamijka Africa Mini Grid oo ah mashruuc farsamo oo loogu talagalay horumarinta shabakadaha tamarta macdanta, kaas oo ka socday wadamo badan oo Afrika ah oo ay Soomaaliland ay qayb ka tahay. barnaamijkan waxaa iska kaashaday hay'adda UNDP-da iyo Global Environmental Facility iyo bangiga African Development Bank iyo wadamada Afrika. waxaa farxad inoo ah markii daraasadiisa la sameynayay in Somaliland tusaale loo soo qaatay mashruucii ka hirgalay ISRAS kaas oo muujinaya Somaliland horumarka ay ka jirto ama tusaalaha u tahay renewable energy-ga sidoo uga socdo, taasoo oo tuujinaysa in dhanka aynu kaga jiro renewable energy-ga iyo sida Somaliland ay qayb laxaad looga qaadanayso. haddaba barnaamijkani waxa uu xooga saari doonaa 3 meelood oo muhiim ah in wada xaajood qaran laga sameeyo qaabka ugu fiican ee lagu hirgelin karo shabakadaha yaryar ee mini gridska, in la yareeyo khataraha maalgashi ee tamarta la cusboonaysiin karo, iyo in la helo xalal technology oo lagu yareyn karo kharashaadka iyo qiimaha.